sabor ma kala lihin dad isku mid ahaan nahay qaarkood ku dooday rag cadaga way ku jiraan ku dooday guri kasto Muqdisho ku yaala in calanka Itoobiya laga taaga ayaguna kuwii ka horeeyay raadka tirtireen waxa soo haray kuwa maanta jooga waxa ma daanay marayaan marxalad ah birri ma harin birri la xaraashi anuna badan ka bilowna marka ayaguna marka baday ka soo bilaabeen marka scenario meel qabo male haday kuwan birri gadayeen dadkuna baday gadeen soo waarta marka waa hanti sabada la dhacay maxaa kala ka dhaha marka hadaan u noqono marka dhinacii dawladda hadda Shariifka dawladda Shariifka waxaad ogtahay baarlamaan baan dhisay adiga ahaan shakhsi ahaantaada markii la doortay madaxweynaha Shariif maxaad aaminsanayeen Shariif intuu isbedelin waxaan ka wadaa hadda waxa leedahay madaxweynuhu uu isbedelo waxyaabo badan baa ku eedeynaysa shakhsi ahaantaada because waxa dadkii maxaakiinta sida aad u taageersanaa marka hadaad guul aad gaarteen oo madaxweynihii gudoomiyihii maxaakiinta madaxweyne loo doortay maxaa marka maalintaasi maxaa adiga maxaa isleedahay maxaa wadan ku soo kordhaa isleedahay misdheeysi dhibaatadan dhacday baa sii dhici doonta misdheeysi waxyaabo kala imaan doona maxaakiinta inaan taageeray waxa la isku haysta ma dad laga qaban ma marka waa taageeray waana u qabnay inay bedel yihiin waxa loo arkay bedel waaxid madaxweyne Shariif baa ku soo haray qofka ummadda Soomaaliyeed nasiib waligeed hal uma yeelan ilaa hadda taariikhdu way yar tahay intay heshay wax la dhaho ummadda Soomaaliyeed qof hogaamiya oo political leadership qangaar siyaasadeed muujiya ama karti siyaasadeed oo Soomaaliya ummadda Soomaaliyeed ka iibsanta soo bandhigay Shariif xilliga uu soo baxay horta dibka jiray waxa iga raalaha niman qabqoleyaal wadanka ku haysay muddo dheer gumaysta ku haysay sanka ka turay nimanka qabqoleyaasha Shariif wuxuu ka ahaa bedel muujiyay inuu ummadda Soomaaliyeed yahay qof hogaamiya oo ruuxiya oo wanaag ka turjumayo oo mabda ka turjumayo qof kasta uu soo dhaweeyay Soomaaliya ani kaliya ma soo dhaweyn dadka dhan ma soo dhaweeyay ala umuum maxaa dhacay lama noqon sawa kacaanku maalintu dhashay dadku iska daba shubeen maalintu rayd ku dhashay iska daba shubeen jamhadu adu waxa ay sheegtaa khayrka wadeen maalinka jamhadaha SSDF iyo USC maalinta imaadeen wala iska daba shubay marka waa jabhad miyaasa waa jabhad oo kalimaad ka wada adigu dawladda hadda jirta maxaad ku qeexaysaa hadda ma dawlad baa ku qeexaysaa ma jabhad baa ku qeexaysaa ma urur baa ku qeexaysaa maxaad ku qeexay adiga aqoonyahan ahaan dawladdan hadda Shariif hogaamiye hadii lagu dhaw maanta describe ku sameey qeex maxaad ku qeexilay waxaan ku qeexay waxa ay isku qeexaan ayaga waxa isku qeexan in qabqableela ka buuxaan ayaga waxa isku qeexan in 4.5 wataan ayaga waxa isku qeexan in Itoobiya saaxiib dhow leeyihiin ayaga waxa isku qeexayaan in badda Soomaaliya iibiyeen soo haday marka taas dawlad tahay daanu macnaha dawlad ma aqaan marka dawlad sida waxa la definition dawlad la dhaho hada maanta dictionary ama encyclopedia ku noqono waxa dawlad tahay magac sidiisu magacu ama qurux badnaad ama faal xumaad jamhadahan hadda aan la yaabay qabqableelka iyo kulligood magacyadu u qurux badnaayeen SS Soomaali badbaadada Soomaaliya wada qorxay laakiin waxaan ognahay in practical level waxaan ognahay xaqiiqo marka laga tago waxay la moogna maanta inta marka adigu waxa ay sheegtaa waxaan ugu qeexay waxa ay isugu yeeraan ama ay dawladda isugu yeeraan ama urur isugu yeeraan laakiin jawaabtu waxay tahay ayaga iyo kuwa ka soo horjeeda midna maanta wax uma Soomaaliya u daneenayo ama dan Soomaaliya ka turjumaya ama mustaqbal Soomaaliya matali kara aan ma u arko hadda waxaad ogtahay madaxweynihii dawladda federaalka wuu soo socdaa wuxuu imaanayaa UN ka bacdi wuxuu imaanayaa gobolkan ku noolnahay Minneapolis iyo Minnesota adiga ahaan hadda madaxweynaha ma soo dhaweynaysiin marka bis waa ka hortagaysaan oo banaanbax baad kaga hortagaysiin horta qofka ku banaanbaxay maahay qofka u sacab garaacayna maahay saashada si ugu tahay okay su'aalo inaad weydiisaan Soomaa waxaad hadda tabanaysid inaad tiraadaan sidaas waa madaxweyne ku khaldantahay hadda saas leedahay waxa ka fiican inaad weydiisid Shariif meeqa jeer baad tala siiseen meeqa jeer baad dhahdeen madaxweyne ma sug meeqa jeer baad dhahdeen war waxaan dariiqan waxaan kaaga imaan karaa waxaan kaaga imaan karaa laakiin saashu waxay tahay hore uga jawaabay qofkii u dagaalamay ama halgankiisu ahaa Shariif waa in adeerkii ama waa reehbal ama waxa rabay inuu Cabdullaahi Yuusuf kursiga u dabamaro ama Itoobiya uga hoos maro de hadda baldago hana soo dhaweeyo kamana hortaagan ha sacabato laakiin qofkii mabda ama Soomaalinimo ama qabyaalad laga baxo ama qashin ama qarannimo ama dadnimo ama mustaqbal fiican qofkii ku naaloonayo de riyada ku marwaamin marka ku roodo iska sug ama ku dhima ama ku rimoodo ama faraha kala baxo iskaga har laakiin anigu shakhsiyadda ma soo dhaweynaysa ma soo dhaweynaysid waxa ku waxaan ka hadaan soo dhaweynayo waxaan kaaga soo sheekay kama soo sheekay Yaasin ugu dambeyntii
waxaan soo gaarnay xilligan gabagabaynayn barnaamijkeena shacabka Soomaaliyeed ee iminka ku daawanaya maxaa tale iyo tusaale aan siin lahayd dhinaca dawladda dhinac kasta ama dhinaca mucaaradka laakiin waxa kale jira ma kuwaana shabaab la yiraahdo xisbi islaamka ee dadkii qarxinay ee leenay ee bamka dhigay oo suicide isku sameynay miyaad leedahay kuwaas ka fiican Shariifka absolutely ma kuma oran waxaan ku dhahay Soomaaliya waxaan ku yiri maanta Soomaali ma xukunto Soomaalina faraha uga jirto laba dad ba xukuma group waxa xukuma nimanka African Union kala dhaho iyo nimanka reer galbeedka hogaamiyaan oo war on terror ama saartade iyo nin la dhaho Walad Cabdalla oo wakiisheen madaxweynaha runta Soomaaliya daarta maanta afkeeda ku hadli kara madaxweynaha maanta oo Walad Cabdalla xaga dhig Shariifkaanu ama hal isticmaal ama bridge ka loo gudbo sida marka Cabdalla madaxweynaha ahaa waxa la hayay dawladda sharciga dawladda la aqoonsan yahay laakiin marka danta lagu gaari waayay waxa dhacay ilaa looga dhaqaaq agoon ba laga dhigay Shariifna waxa laga yaabaa in adigu noolaano inaan noolaano taagnaan laga yaabaa magaalada deganaano in ilaahay du nafta noo daay laga yaabo inaan maalin sida agoonka soo cidlo looga dhaqaaqay oo la leeyahay macnaha iska fiiri baawrta iska fiiri inaan noolaano laga yaabaa marka danta Soomaaliyeed maanta ma dhaxtaalo Soomaali ama kan dadka qarxinaya afka duuduuban ha ahaato ama Shariif ha ahaato laakiin nuxurku waxa waay Soomaali maanta inay tahay meel adduunka ba ku heshiin la caalamkii ba ku heshiin la marka Soomaaliya maanta Soomaali faraheeda kuma jirto waxay faraha ugu jirtaa ajnabi kale ayagu markay isku dilaan markay ku soo kala raayaan aan aragno laakiin haddaan maanta waana fiican Shariif u jeediyo Shariif tala kama goodo Shariif tala waxa dad kale ka gooda aad baa u maasantay waxaan dadweynaha daawan waxaan ka raali gelinaynaa qadka telefoonka oo maanta aad noo waxaan ka codsanaynaa Yaasiin inaad xilli kale aad noo timaado oo kugu macsuulno si dadweynahana daawanay si toos ah live-ka maanta ay ku soo wacaan waxaan ka xunnahay qadka telefoonka ayaa maanta aad u halaysan oo satellite-ka ayaan telefoonku soo gelin marka waan ku hambalyeynaa waqtiga aan siisay aad baan u mahadsantahay hadda daawada halka naga daawanayso Somali Media waxaan haddana